magacayga waxaa la dhahaa baashow kaahiye samaan laakiin waxaan ku magac dheerahay baashkaas jug soo dhacay baashkaas haddii aan idiin sharaxa waa 3 magac oon isu keenay waa baashow kaahiye samaan baashow waxaan ka soo qaaday baash kaahiye waxaan ka soo qaaday ka samaanna waxaan ka soo qaaday s macnaha maalintii loola jeeda jug soo dhacay waxa weeyaan aabahay ilaahay u naxariista ayaa wuxuu isticmaali jiray magacaas jug soo dhacay taasoo u baxday kadib markuu ka qayb galay dagaalka labaad ee adduunka asagoo laga warhaynin oo 15 sano la la'ay kadib 15 sano markuu soo laabtay ayaa dadka saaxiibyaalkiisa ay ku arkeen magaalada Wajeer waxay dheeniyay ninkaadan maartaan ilowni on ashaadiini oo nin dhintay aan ku xisaabnay cirkabaad ka soo dhacday wixii waqtigan ka bilowda waxa lagu bixinaa jug soo dhacay magaca jug soo dhacay saas buu ku baxay anigana maadaama duqa aabahay ilaahay u naxariista uu ka shaqeynay idaacada loo yaqaan Voice of Kenya oo wariye ka ahay oo magacaas u isticmaali jiray maana rabin inuu markaa magacaas uu maartay qadka ka baxa oo la iloobo waayo dad badan oo Soomaali oo East Africa ku nool ayaa magacaas aad u socdeen oo markaa duqa aabahay aad u garanayeen taas awdeed waxay dantay ugu qasabtay anigana inaan magacayga oo 3 aan isku qasa oo bashkaas ka soo saara jug soo dhacayna aan ku daba xira waqtigan waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa